wahsigu waa daal maskaxeed oo ku dhaca dadka kaasoo yareeya doonista iyo firfircoonida shakhsiga. caajisku waa daal jireed oo ku dhaca dadka kaasoo keena wax qabad la'aan oo qofka doonaya inuu wax xaqiijiyo. caajisku darajo ahaan wuu ka hooseeyaa wahsiga. waa tamar daro ruuxi ah oo ku dhaca awoodda qofka. wahsiga iyo caajiska waa laba eray oo kala duwan dhawaaq ahaan iyo macno ahaanba, balse waxaa laga yaabaa inaad aragto labadan eray oo si isku macno ah loo adeegsanayo mararka qaar. ibnu xajar markuu kala saarayo labadan eray wuxuu ku macneeyey wahsigu waa qofka oo wax qaban karin isagoo leh awooddii iyo caqligii uu ku qaban lahaa, laakiin caajisku waa qofka oo doonaya inuu wax qabto haddana aan awoodin. si la mid ah Sheekh Cayni wuxuu ku macneeyey caajisku waa qofka uu awoodi waaya ficilada khayrka. wahsiguna waa nafta oo aan isu dareen wax wanaagsan iyo rabitaanka qofka oo yaraada isagoo wax suurtagelin kara. sidoo kale Sheekh Moxamed bin Saalix ayaa asna ku macneeyey labadan eray sidan: wahsigu waa qofka oo ka liita dhanka doonista, caajiskuna waa qofka oo ka liita awoodda jirka.